hargeysa lagu nastaa halkaasa lagu degaa bulshadu waa habar wadaag hilbiyo dhiig wada dhasho iyagu midoobaya halabbay wada qabaan kulanti habboon akhyaarta hawada naga daawatay halkani waa telefishinka qaranka Soomaaliland xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha bulshada oo toddobaad kasta aan idinka soo tabina halkan anagoo ku soo qaadana mowduucyada ugu muhiimsan ee ku saabsan bulshada toddobaadkan barnaamijka waxaanu diiradda ku saari doonaa macnaha shaqada iyo shaqo abuurka inagoo si ballaaran bulshada u fahamsiin doona waxa ay tahay shaqo iyo waliba macnaha loola jeedo shaqo abuurka alaaba marka laga hadlayo wax ku saabsan arrimaha shaqada qodobka ugu horeeya ee la soo qaato ayaa ah shaqo la'aan ka jirta dalka walow ay jiraan aqoon-yahano badan oo aaminsan in haba yaraatee aanay jirin wax shaqo la'aan ah oo ka jira Soomaaliland hase ahaatee bulshadu aanay wali fahmin habkii looga faa'iideysan lahaa fursadaha shaqo ee ka jira dalka barnaamijka toddobaadka haddaba waxaanu kaga hadli doonaa shaqadu waxa ay tahay iyo waliba shaqo abuurka waxaana ay kala qayb galaya mas'uuliyiin ka socda shirkadaha maalgelinta ee Soomaaliland iyo waliba mas'uuliyiin ka socda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada aan idhaahdee mas'uul ka socda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland haddii martida aan idin sharaxana waxa midigteeda fadhiya Khaliil Maxamed Sheekh Cali oo ka socda mashruuca microfinance ee shirkadda Dahabshiil magaalada Hargeysa ahna madaxa microfinance ee Hargeysa bidixdeeda waxa fadhiya Umar Saciid Jaamac madaxa xarunta shaqadoon ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland isaga bidixdiisa waxa fadhiyana madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda kaah waliba mashruuca Islamic Microfinance Abdillaahi Xasan dhamaantiin daawadayaal waxaan mar labaad idinku soo dhaweynayaa barnaamijka idinkana waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijka وتاي هدي أنك بلابو عمر سعيد عمر مر لبعض أنا برنامج كنا كويس ولا وينيا بالمعنى جود واحد نقص يسا شقة واحد هاي واحد شقة أبور ولا تشيدو الحمد لله إلى ما هضله هدي أنك هالله وما شقه أرجع شقه وأري أديات برودة أديات وين لكن معناها وحنبرسيها وحويان وهذيك مرككوات لو قبته مسكح يمر si loo gaaro ahdaaf ama yool kaasoo manfac u leh qofka shaqaalaha luqada ajnabigana waxa lagu yiraahdo waa mental iyo physical wax lagu qabto si loo gaaro objective maskax iyo muruq marka wax lagu qabto shaqo ayaa sida loo garanaya shaqo abuur hadaynu u leexano shaqo abuur it means waxa weeyaan waa new innovation waa hal abuur cusub aanan ahayn kii hore u yaalay oo mid cusub wadanka lagu soo kordhinayo waata ayaa loo yaqaanaa marka shaqo abuur yaa loo sameeyaa shaqo haddii aan dhab ahaan ka hadlo shaqo abuur waxa sameeya dawladdu dadku waxay u arkaan inay shaqo abuur samayso waata dawladdu shaqo abuur ma samayso regulation ayay samaysaa nidaamkii iyo systemkii ayay samaysaa inta ugu badan dadka waxay ku mashquulsan yihiin hay'adaha dawladda laakiin shaqo abuurka waxa sameeya kambaniyada ganacsatada sidoo kale dawladdu dhiirigelin ayay u samaysaa inay hal abuurka sare u qaado shaqo abuurka lafsadiisana sare u qaado waa tahay waan ku soo noqonayaa Umar waxaana la joogaa shirkadihii maalgelinta bixinayay ee Soomaaliland kaah microfinance iyo Dahabshiil microfinance Khaliil baan ka horeynaya Khaliil maalgelinta bixisaan horta waa noocma kulay anagu waxaanu dhiirigelinaa ganacsatada yaryar oo aanu fursad u siino in ay shaqo abuurtaan si kor loogu qaado dakhliga dadka soo galaya marka waxay isugu jirtaa maalgelintaanu bixinaa maalgelin aad u yaryar oo la yiraahdo microfinance iyo maalgelinta dhexe ama oo la yiraahdo medium sized loans iyo maalgelinta adu in yar ka sii badan waaweyn yaan oran small medium size kuwaasan bixina waata dadkaad maalgelisaan maxay isugu jiraan dhalinyarada maalgelisaan mise qaybaha kala duwan ee bulshada oo dhan wada maalgelisaan wallahi dhalinyaradu horta way u badan tahay waa dadka iminka u baahan in loo abuuro fursad shaqo marka dhalinyartu way u badan tahay waxa kamid oo kale dumarka
iyo bulshada qaybaheeda kale haatanse waxaa u badan dhalinyarta oo 50% shaqeynaa waxa weeye dad ay da'doodu ka yar tahay 35 jir laakiin barnaamijku waa ballaaran yahay oo waxa ka qayb qaata xagga dumarka ayaanu magaranaysaa u badan oo 70% noqonaya waay adna ku soo noqonaya waxaan fursadda siinayaa Cabdi Cabdilaahi Cabdilaahi maxaad ku daraysaa sharaxaadda uu ka bixiyay systemkooda iyo shirkadooda soo shaqeyso idinku macnaheenu maxay tahay maalgelinta bixisaan maxay tahay horta maalgelinta bixinaa waa baritaar baan ahaanaa ganacsiga yar yar walow hadda ganacsiga dhaxana aanu noogu jiro qorshaha dadku markaa waa laba qaybood qof isagu fikir fiican haya oo raba in fikirkiisa la maalgeliyo waan maalgelintii haynin qof fikir fiican haya bilaabayna ganacsi oo raba inuu horumariyo labada qaybood bay marka hore ay u qaybsamaysaa qofku marka uu maalgelinta doonayo waa noo yimaadaa dabadna waxaan la sameynaa meeting ama waan la kulanaa baahidiisaanu eegnaa baahidiisa markaa eegno darisno waxaa laga yaabaa qofkii inuu wixii uu soo weydiistay wax ka yar ay ku filan tahay ama wixii uu soo weydiistay ama intana kuguma filo waxa doonaysa way ka badan tahay markaan la qiyaasno dabadna aanu eegno qofka dakhliga soo gala iyo wuxuu iska bixin karo anagu markaa waxaanu sameynaa qofka lacag ma siino kaasha laakiin waxaanu sameynaa waa alaabo waxbaanu kala ganacsanaa alaabadaas qofku wuxuu doonayo noo yimaada lacag kaasha siin mayno alaabtii waanu soo iibinaynaa ama qalabkii u baahnaa baanu siinaynaa taasaanu markaa anaguna faa'iideeyo lacag kaasha maxaad siin weydeen markaa haddii qofkii lacag kaasha u baahdo tusaale lacagta kaashka waxaanan naguma badna waayo islaamiga weyga habka aan ku dhaqanayna waa habkan islaamiga marka islaamkuna ma ogola in lacag uu ogol yahay in lacag laysa siin karo amaaha laakiin wax faa'iida in la saaro waxaan loo yaqaan qarad alxasan baa lagu samayn karaa sidaa aawadeed dee anagu qudheedu inaan jirno faa'iidaanu ka rabnaa marka hab ganacsi oo intaanu alaab qofku wuxuu doono noo yimaado ayaanu qofkii ka sii iibinaa dabadna faa'iido yar baanu saarnaa laakiin lacagtoosoo islaamku ma ogola qaybaha bulshada maalgelisaan maxay kala yihiin qaybaha bulshada maalgelina waa sidii walaalka khaliifba u sheegay waa horta dad cid walba way furanta oo cid ka xidhantay ma jirto qof kasta wuu abalay garayn kartaa waanu eegaynaa markaa systemka laakiin waxaa u badan dumarka iyo carruurta runtii oon odhan karno 70% waxa weeyaan dad da'doodu ay ka hooseyso 35 jir ama kategoriga dhalinyarada noqon kara oo rag iyo dumarba leh 50% dadkan u adeegno waa dumar ama muxuu ahaa waa dhadig way thank you Umar idinku ka shaqo doon ahaan xaruntii shaqo doon baad ka socotaa waxa tahay madaxii xaruntii shaqo doon ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maxaad ka caawisaan dadka idin yimaada shaqada dalbanaya ma inaad shaqo la raadisaan oo kaliya mise talooyinna waad siisaano dadkan laftoodu inay shaqo abuur iyagu sameeyaan ayaad kula talisaan haddii aan su-aashaydii hore dib aan ugu noqdo ahaa in dowladdu shaqo abuur ma samaysaa 23 bishii June ee la soo dhaafay 2013kii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu magacaabay 7 xubnood oo guddigii shaqo abuurka iyo ka hortagga tahriib oo kamid ahaa wasiirkii Allah ya raxmo raximin wasiirkii shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamuud Axmed Baragaraad ilaahay jannada ka waraabiyo wasiirka warfaafinta wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha wasiirka diinta iyo awqaafta wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka cadaaladda hayo anagu dhalinyaradu wax badan baan ka caawinaa markaad qof shaqadoon aad maqashid it means waxa weeyaan nin dhalinyaro ah cid walba aad qof walba shaqadoon waxaan ka caawinaa marka koowaad gacantaan ku dhignaa qofka waxaan ogaanaa halka iska qaban laadahay aqoonta oo asaga sito ama xirfadda oo asaga sito iyo suuqi waxaan sameynaa isku xid aan isku xidhayna qofka loo shaqeeyahay iyo qofka shaqadoonka inta badan waxay u badan yihiin ardayda jaamacadaha ka soo qalin jibiyay waxay u badan yihiin qolo xirfadda soo baratay dhammaantood waxay kala kulmaan suuqa caqabad oo ah fursadihii shaqo iyo waxaanan iswaafaqayn aqoonta ay sitaan waxaa laga yaabaa in lagu xiro khibradda ay iyagu aanan lahayn sida daraaddeeda caqabadaha ayaanu anagu waxaan u noqonaa bridgeka ay ku gudbi lahaayeen waxaan tababar baan siinaa oo job readiness anagu aan loo yaqaan afka qalaad ama in loo dilahay oo diyaar garowgii shaqada waxaan barnaa maamulkii shaqada akhlaaqiyaadkii shaqada nidaamkii shaqada systemkii lagu shaqaynayay intaa iyo in ka badan qofkan waxaan u diyaarinaa qof
maanta haddii goobaha shaqada uu tago ka shaqayn karo. xaruntu intaa keliya kuma aha, waxay isku xidh u samaysaa loo shaqeeyaha iyo qofkii shaqadoonka ah. For example kambaniyada oo kale waxaan soo simbal kaaga soo qaadanaya Victoria, Photo Victoria waxay doonaysay maalin dhaweyd inaan editora oo u sameeyo photoshopka. Request bay noo soo dirtay, automatically waxaan eegnay ardada IT-ga gaar ahaan anagoo ku eegayna grade-ka ayagu ay sitaan. Then waxaan haddana weydiinay are you professional ma taqaan photoshopka iyo editing. 3 qofood baynu shortlist ku soo saarnay, 3 qofood baan orientation siinay, 3diiba waxaan u dirnay photada Victoria. alxamdulillah 2 kamid way qaateen, imika way shaqaynayaan. marka labadaas aad geyseen ma imtixaan bay 3 ku galeen mise iyaga wada u baahday? 3diiba imtixaan bay ka qaadeen. ayagu waxay ku shaqaynayaan waa daily routine-ka, ayagu shaqaynayaan waa dadka ay sawiraan footooyinka loo hagaajiyo. automatically imtixaan bay ka qaadeen, mid kamid ah wuu soo gaari waayay halka iyagu doonayaan. 2diina way qaateen. waan ku soo noqonayaa Khalil, dadka idin yimaada ee maalgelinta doonaya maxay ka dalbadaan in laga maalgeliyo? waxa ugu badan ay dalbanayaan in laga maalgeliyo maxay tahay? sidaan hore u sheegay waxaan la shaqeynaa dadkan yani ganacsigooda hooseeyo ama dakhligoodu aad ka hooseeyo. dadkaasi waxay qabtaan ama ay leeyihiin sources dhaqaalo ka soo galo aad iyo aad u kala duwan oo diversified ah oo aad u badan. waxyaabaha inoola yimaadaan waxaa ka mid ah ee aanu anaguna dhiirigelino waxaa ka mid ah qaybaha wax soo saarka qaabilsan sida beeraha oo kale, xoolaha nool iyo wixii ka soo go'a sida caanaha, xoolaha nool laftooda. waxaa ka mid ah farshaxanimada oo dumarkii wax tolayay ay ku jiraan ama raggii iyagu xirfadda lahaa ama dawaar ha tolo ama bir ha ka shaqeeyo ama bir ha qalloociyo oo dadkii magaraysa farshaxanka ahaa oo runtii aanu yani anagu door bidno inaan la shaqeyno. dee waxa weeye waa lafdhabartii u dhaqaaluhu ku wareegayay qofka hadduu farsamo garanayo. waa tahay maxaa ugu badan laakiin? waxaa ugu badan xoolaha iyo beeraha. xoolaha iyo beeraha dukaamadii way yar yihiin biyaha lagu iibinayay. dukaamada waa jiraan laakiin waxaanu koota ayaanu u sameynay. runtii iyaga laftoodu way badan yihiin laakiin kootaanu u sameynay boqolkiiba so much percentage baanu nidhi dukaamada ha noqdaan. marka qofka xoolaha doonaya in laga maalgeliyo qof miyi ka imanayaba mise waa qof magaalada xoolo ku dhaqanaya? waxay noqonayaan 2 nooc bay isugu jiraan oo dad miyi ka imanaya iyo dad magaalada jooga oo intaan u iibino xoolihii dabata miyi geysanaya oo soo naaxinaya. markii neefki soo yaro weynaado dee lacag fiican u jaraya ayuu soo celinaya, qofkii seelada ku soo celinaya kolkaasuu iibinaya. iyo dee matalan qof qalaya oo kale, labadaba waan la shaqeynaa. beeraha sidoo kale waxaanu kala shaqeynaa dhowr dhinac. waxaanu ka faa'iidaysanaa solarta ayaanu ka faa'iidaysanaa. iyagu dadku berigii hore waxay isticmaali jireen mashiinkan soo saaraya petroolka isticmaalaya. iminka mid cadceedda ku shaqeynayaan u dhignay. waxaanu waan tababar baanu u sameynaa, waxaanu siinaa techniqueska ay wax u beeran lahaayeen. waxaanu khubaro u dirnaa matalan ciidda iyo wixii ku habboon ka soo baxaya hadba sanadka ama xilliga la joogo. tababarka runtii way ka faa'iidaystaan, waxaa meesha ku habboon bay beertaan. waxaanu ka caawinaa dhinaca la dagaalanka cayayaanka. waxaanu siinaa siidha fiican oo aan magaranaysa aanay ku badnayn bahalahan lagu soo mudaa. taasoo runtii dhaqaalo lacag cadaan abaad marka hore siisaan mise adeegyada lagu dartaan mise qofka waxaan idinka u qabanayo oo qadar lacag inta u cayintaan? annaga u qabanayna maxaa haday wax lacag oo aanu siinaa ma jirto. dadka badankooda way jiraan qaar aanu lacag siinaa laakiin ma jiraan oo wixii waxa weeye waa ganacsi. oo sida cabdilaahi sheegayba dee wixii faa'iido ayaan la saaran karin haddii matalan lacag cadaan la siiyo. dadkan annaga u qabana servicekan annaga ayaa markaa charge gareynaa. waxaan ugu qaybinaa markaa muddo aad u badan oo wax yaroo qofkii aanu dareemaynin uu soo celinayo, taasoo qofkii u suuro gelinaysa waxaanu markii hore awoodayay inuu helo. waad mahadsantahay cabdilaahi. sidaan isigaba weydiiyey dadka idin yimaada maalgelinta doonaya markaad qiyaastid dadkaasi maxay u badan yihiin maalgelin in lamaga maalgeliyo? horta dadkaasi sidaan sheegay waxay u badan yihiin dadka u baahan maalgelinta ganacsiga yaryar. qaybaha kala duwan ee walaalka Khalilba sheegay way noo yimaadaan. laakiin marka celcelis ahaan la eego dadka anagu muxuu ahaa maalgelinteeda siino waxa ugu badan dadka baacimusharka yaryar ah, dukaanada haysta, dabakaayooyinka haysta, maqaaxiyaha haysta, hudheelada yaryar haysta,
dadkaasaa runtii ugu badan. qolada labaad ee soo raacaysa waxay noqonaysaa qolyaha kan adeega bixiya sida xirfadlayaasha oo kale, dadka kala duwan ee xirfadda kala duwan qabta ee farsamada ah iyagu iskoodu shaqaysta, iyo adeegyada kale oo iminka Somaliland runtii wadankeena aad ugu soo badanaya qaybta adeega. marka qaybtaas baa mushtarka yaryar. qaybta labaad ee soo raacaysa waa adeega. qaybahan kale hadday tahay beeraha iyo maxaa la yiraahdaa xoolaha nool iyo kalluunka iyo way jiraan, laakiin waxa had iyo jeer haboon oo lagu xisaabtama adeegyadaasi waxay u baahan yihiin waa adeegyo muddo ama waxaan loo yaqaan baamushtarka seasonalka ah. hadday kalluunkii noqoto kalluunkii 6 bilood baa si wacan loo kalluumaysto, kalluunkii dhulka hoostiisa lama gaadhin oo qalabka uma haysano. intan kalluunkan wareega ee badaha ku wareegay qolo walba intii ilaha uga qabta ay ka doonato meel ka qabsan karnaa. kaasna waqtiyada qaar kood uu go'aa, laakiin waxyaabaha muxuu ahaa shabakadaha iyo doonyaha iyo waxyaabaha iyaga dadka qaarkii waanu la qabanaa. xoolaha nool laftooda waxyaabaha mushkiladda inay yara haysaa resourceskeena nationalka ah waa mid u yara baahan dhiirigelin, waayo wuxuu leeyahay riski ah beerihii oo kale ama abaaro ama ilaah baa ku shaqala arrimaha waa iman kara. marka riskigoodu waa wixii nationalkeena dadku sida ay sababta ay baamushtarkan yareer ugu badan yihiin riskiga ku jira national production kaana haday kalluunkii tahay, haday xoolihii noolaa tahay oo mararka qaarkood aan la iibsanayn carabuhuna naga qaataan, mararka qaarkoodna qiimaha siistaan ay laga yaabo inay hoos uga sii dhaco oo aan xaalad aanay deganin, marna kor u yara kacaya marna hoos oo fluctuation sameynaya. dadku waxay ka jecel yihiin marka ay dhiirigeliyaan waxyaabahan kale baamushtarka ay marka riskiga ma idinka ka baqaya mise waxa ka baqaya dadka la maalgelinayo ayaa inay ku khasaaran ka baqaya? annagu kama baqanayno oo waa of course waanu bareernaa, laakiin dadka laftiisii wixii macquul ah waanu kala talinaa oo wixii waa inay dadkii qofkii anigu aan maalgelinay waxaanu jecelahay qofkii inuu ku guuleysto baamushtarkiisa. marka aanu isla eegna muxuu ahaa la isla eega assessment la wada sameeyo, mararka qaarkood wixii ay iyagu u socdeen waxaan ahayn bay marka dambe ku qancaan inaanu ka maalgelino. laakiin way jiraan dad idin yimaado maalgelin dalbado oo aad tirahdaan anagu nooca maalgelinta ma bixino oo iyagu maalgelin gaar ah doonayo oo aad ka diidaan? inta badan dadku kama diidno, laakiin dadku waxay doonayaan the choice-ka iyaga markii hore samaysto noo yimi waanu isla eegnaa wixii macquul ah iyana ay ka faa'iideyaan anaguna aanu ka faa'iideyno. oo anaga interest-kaygu waxa weeyaan in qofkan aanu maalgelin aanu khasaarin ee uu ka faa'iido uu faa'iido keeno, anaguna aanan khasaarin. taasaa marka philosophy-gu yahay. laakiin waxaanu jecelahay runtii in aad iyo aad loo dhiirigeliyo waxyaabaha wadankeena ka soo baxay oo hadda aynu sheegnay oo qad waliba isku raacsan tahay in riskigoodu uu weyn yahay. marka si loo yareeyo waa in shirkadihii iyo dawladdii cid walba iska kaashato in maalgelin buuran la siiyo, muxuu ahaa risk assessment fiican la sii sameeyo xilliyada ay waxyaabahaas ay dhici karaan iyo xilliyada aan dhici karin, si markaas ay cid walba u faa'iido shirkadaha laftooda aan ku inay dadku. waan ku soo noqonayaa Cumar. waxaa jira dad badan oo ajaanib ah oo wadankii ka shaqeeya, kuwa ganacsi abuurtay iyo kuwa cid u shaqeeya. dadkaasi ma idin soo maraan markay shaqada doonayaan? arrimaha marka laga hadlayo ajaanibka waxaa loo kala qaybiyaa laba. qoladan iminka qaxootiga ku timi ka timi maxaa la yiraahdaa wadankan jaarka inuu nahay Yemen, de waxaa loo aqoonsan yahay inay qaxooti yihiin. xuquuqna waxay u leeyihiin inay noolaadaan. laakiin ajaanibka kale wasaaradda way soo maraan, waag permitna waan siinaa ruqsadii shaqada. ku hanweynahay in badan oo ajaanib aan haysan ruqsadihii shaqada laga saari doono wadanka. laakiin nin mas'uul ah oo wasaaraddan shaqada iyo arrimaha bulshada jooga oo aniga ii sheegay waan rabin magaciisa inaan sheego, wuxuu leeyahay shaqaalaha ajaanibka ee shirkadu wataan ogolaanshaha shaqada waxaa siiyaba immigrationka oo laanta socdaalka halkaa ka siisa ee wasaaradda ma soo maraan. maxaa ka jira arrinka? marka laga hadlayo dawladdu sideedaba waa network wada shaqeeya. dawlad walbana waxay leedahay institutionno. immigrationkana wuxuu ka mid yahay institution dawladeed, wasaaradda shaqadana waa institution dawladeed, laakiin mandate-ka ay kala leeyihiin baa kala xadidan. wixii ruqsadaha shaqada ah waxaa xuquuq u leh inay bixiso wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. khaliil maxaa shuruudaha ku xidhan qofka aad maalgelinaysaan? maxay yihiin shuruudahaad ku xidhaan? horta shuruuduhu kolley way kala duwan yihiin qof iyo qof.
oo waxaan u eegnaa individual cases baan u eegnaa laakiin sababta aan u asaasanahay baa ah in yacnihii qofku uu ka aaminsan yahay marka la yidhahdo waxba lama ahanayaa meel dee processkeedu dheer yahay iyo procedure badan iyo waraaqo badan loo diri doono qofka anagu waxaan u asaasanahay inaanu jaanis siino dadka aan bangiyada waaweyn waxba ka amaahan karin ee aan shuruudahooda buuxin karin ee aan ka soo bixi karin shuruudaha ay baananka waaweyn doonayaan maadaama aan dadkii foqorka ha dhiirigelinayno marka shuruudo badan kuma xidhno laakiin waxaanu hubinaa inay dadkaasi shaqaynayaan isla markaa dee lacagtina ay soo noqonayso ayaanu hubinaa waxaanu marinaa procedure yar oo aad iyo aad basic u ah annagoo marmarka qaar iyaga isku xidhayna dadkii macaamiisha ahaa laftoodii isku xidhayna oo mas-uuliin mas-uul isaga dhigayna isku xidhayna marmarka qaar damiinul maal dadkii weydiinayna macquula mararka qaarna maba weydiisan miya mararka qaar haddaan la weydiin waxa weye iyagaa la isku xidhaa imika markaanu ka shaqaynayno caanaleydan xisbiga hargeysa oo kale oo aanu fursad siino oonu xagga qaboojiyaasha caanaha iyo waxyaabahaanu ka caawino iyo waxaan weelkan ay caanaha ku shubanayaan oonu joog yaroo si fiican oo yani degdega loo nadiifinayo aan ugu bedelay markaan la shaqaynayno dee waxa weye meel bay ku wada jiraan groupis baanu u qaybinaa groupiska iyaga markaa mas-uulska ah markaa group waliba wuxuu leeyahay group leader isaga ka soo ururinaya lacagtii waxba yani wax yar oo naf lahayn bay soo celinayaan oo qofka marka hore haddaan la culaysin oo lacag badan la weydiin oo la odhan lacag badan soo celi oo wax yar la weydiiyo qofkii kuma adkaanaysa in isku soo celiyo muddo inta leeg bay ku qaadanaysaa waxa yar in la soo celiyo waxay ku qaadataa way kala duwan tahay saan hore u sheegay case by case weeyaan waxay ku xidhan tahay nature-ka loonka qofka waxa alaabta la siiyey qofka dakhligiisa waxyaabo badan bay ku xidhan tahay marka waxay 3 bilood 6 bilood sanadii badh 2 sano meelaha waanu siino laakiin dadka qaar baa waxay leeyihiin waxay kaga dhigeen qoladan shirkaduhu xoolahaagu ama xiraha kugu jiraan ama xeer adaga kugu jireenoo waxbay ku adkeeyeenoo qofkii waxay leeyihiin inaad leedahay hanti ma guurto ahoo kale oo baloodho waaweyn aad leedahay oo gaari aad leedahay waxaasoo kale ku xidhaan baa laleeyahay maxaa ka jira anigu aniga kolley maxaa yahay qofkii foqorka ahaa dadkan la shaqaynaa waa dad dakhligoodu ka yar yahay $600 sanadkii ama si kale haddaanu dhigo ku nool $1 wax ka yar maalintii waxay ku jiraan foqor yacnihii xadkii u hooseeyay bay ku jiraan marka suuragal maaha inaan la weydiiyo dad qofkii maganaysa hanti keen ama guri keen ama saa uma shaqayno laakiin nidaam kalean leenaho sidaan kule imika grouping waanu qaybinaa iyagaanu mas-uul isaga dhignaa way leeyihiin ururo oo ururka caanaleyda beeraha markaan ka shaqaynayno doox walba waxay leeyihiin iskaashato maalan 200 beerood hadday ku yaalaan waa iskaashato wey iskaashatadaas dee guddoomiye leeda ama doox waliba guddoomiyuu leeyahy haddaan la shaqaynayno qolooyinka tibajarayaasha dee waxaa jira urur bay leeyihiin qofku markuu ururkooda soo dhex maro ayaanu magaraysa koox kastaaba ururkeeday leedahay dadku dad ajaaniba ma jiraan oo aad maalgelaysaan mise qofka waxaa shardi ah inuu muwaadin somaliland dara yahay qofka weli horta runtii lamaana shaqayn dad ajaaniba dadkaan la shaqaynaa dhammaantood ganacsatada yaryar hoos yimaada dhammaantood waxa weeye waa dad muwaadiniina waayahay cabdilaahi shuruuduhu maxay ka duwan yihiin kaa uu sheegay maxayse yihiin idinku shuruudahaad ku xidhaan qofka aad maalgelinaysaan horta dadka la maalgelinaya waa 2 qaybood labada qaybood waa qof shakhsi ah isagu business ama leh oo raba inuu horumariyo ama mid cusub bilaabo dadna waa dad iyagu guruuba ama kuwa ha noqdeen xirfadle waxyaabaha kala duwan ka shaqeeya ama dad baac mushtara oo isku fikir baac mushtar leh labada gruub horta u qaybsamaan gruubka koowaad ee dadka shakhsiga ah dadka iyaga marka waa 2 gruub oo qofku hadduu cusub yahay waa inuu isaguna horta waa inuu wixii doonaya motivationkiisu sareeyo oo waxaan inay ka dhab tahay aan runtii ogaano waana soo baxaysaa oo nidaamka su'aalahan is weydiinayna iyo habka baaritaanka ay ku soo baxdaa qofka cusubi waxaanu kala rajaynaynaa wax kasta ha noqoto haba yaraato inuu waxna contribute gareeyo isaga laftiisu oo muxuu ahaa haddaan $300 siinayno $10 $15 $20 horta wuxuu inuu contribute gareeyo waa shuruud kamid horta qofku wax yara gacanta ku haya ayaa shuruud qofka cusub leeyahay Soomaad garan akoon uu ku leeyahay
waanu furnaa markaa waxaanu kala u dhignaa wax la yiraahdo saving wax la yiraahdo ama dhigaalkaanu dadka ku barnaa boqolkiiba 3 waxa markaanu siinayno waa in qofku uu kaydsado kaydkii haddii hadhow wax ku yimaadaan ayaa waa u haynaa oo bangi baanu isagana ugu shubnaa si dadku ay u bartaan inay wax dhigan karaan oo safe ay samayn karaan qodobka kale ee muhiimka ah waxa weeyaan qodobka damiinka qofkii ka cusub iyo ka soo jirayba qofkii soo jiray already contributionkii uu samaysto meel buu leeyahay dukaan buu leeyahay meel buu haystaa ama dabakaayar ama meel wax ku gadaa buu leeyahay qofka isaga looma baahna markaa in uu contribution wax ku darsado waa isagoo already meeshii iyo nidaamkiiba systemkiiba ku soo jira marka qolada ku dheedo waxa ka sameeyeen iyaguna in qof damiinta in la helo qofku inuu markaa diyaar u yahay qofkan haddii laga waayo wixii ay ka soo noqon weydo inta badan dadku in wadad wacan waxay qaateen iyo way soo celiyaan runtii macaamiishaydu aad bay anaga u fiican tahay anagoo kimis oo shirkadii ugu horeysay ee arrimahan ku dhiirata runtii microfinance marka la leeyahay ama baaritanka ganacsiga ee qoladii ugu horeysay bilowda baanu ahayn sidaa awoodeed arrintan aad sheegtay in wax lagu xidho maxay ahayd shuruudo badan guriyay iyo waxyaabaha noocaas waa investment ama maalgelinta tan ka waaweyn anagu taayimka ma sameeyno malaade meelaha kale sameeyay baanka waaweyn waa laga yaabaa in inta sameeyaan anagu damiinka qofka damiina shakhsiga baan ku xidhaynaa qofkii waa inuu markaasi yahay qof diyaar u ah qofkan haddii dhibaato ku dhacdo laga waayo in qofkaas uu bixin karo inta badanna mushkilad kala kulano oo dadku iyaga iska soo celiya boqolkiiba mala 99 laakiin mar barweed dhacday laga waayo way dhici kartaa se waa wax aad iyo aad u kooban waxaad samaysan kaas kale marka laga waayo wallahi waxaanu sameynaa marka qofkii laga waayo horta ma yaala dhacdo qofkii waanu dhiirigelinaa asbaabtaan ogaanaa dib u dhigis baanu markaa u sameynaa muddadii wixii ku bixinayay in ay dib u dhacdo haddii qofkaas ay muuqato in duruuf ay ku timi uu ku bixin kari waaya marka kulli qofkii waanu la xiriirnaa isagana maxay ahayd damiinka u ahaa mararka qaarkood damiinka bixiya mararka qaarkood xal dhaxa baanu isugu nimaadnaa oo ku soo noqonaya Umar dadka idin yimaada shaqo doonka maalgelin dad codsanaya idin yimaadaan oo shirkadaha maalgelinta ma la tagtaan mise dadka shaqo un bay doonayaan dhab ahaantii haa way jirtaayo inta ugu badan dhalinyaro ayaa jirta innovation sameeyay hal abuur oo kale waxaa ka mid ah inamadii jaamacadda Hargeysa ka soo baxay engineering ahaa annaga ayaan isku daynay wasaaradda annagoo la kaashanayna waxaan u sameynay inay urur samaystaan 20 students bay ahaayeen 20 arday company bay yar bay samaysteen annaga ayaa warqadii diiwaangelinta u sameynay xafiiskii baa loo qalabeeyay imika waxay ka mid yihiin kambaniyada constructionka waa innovation waxaa kaloo ka mid ahaa inama shandada sameeya hambaagiyo ayaguna noo yimid oo naga doonayay ilaa imika bending nagu ah inaan anagu aan casriyeyno hambaagyada market badan bay leeyihiin dawaar iyo waxbay naga codsadeen qorshaheedana waan ku jirnaa sidoo kale habla ayaa jira iyagu lafsadooda waxaa kaloo jiray inama biogas sameeyey maxaa la yidhaha awoodan biogaska la yidhaahdo waxay ka sameeyeen xiradhiigta ay waxay ka soo qaateen uus waa macmileen then biogaskii inay functional tahay bay ogaadeen waxay ugu talagaleen inay upgrade gareeyaan oo sare u qaadaan waxaa jiro inamo kale oo sameeyey dhagxaantan yare la saaro mashiinadan kafayga ee adag ilaahay nagu manaystay buurta kala jeexan bay ka sameeyeen waa new innovation bay ahaayeen halabuuro badan baa jira waxaa kaloo jira inan ka baxay agriculturalka goolis jaamacadda goolis wuxuu sameeyey meel yaroo aan ka badnayn 5 mitir beer yar buu ka samaystay beertaa wuxuu ku waraabiyaa 3 leh oo ah 60 litir fikrad yaro cajiib ayuu sheegay caga waterka biyaha ayuu ku waraabiyaa beerta waxa ayna bishii wiigiiba ku filan 60 litir oo biyaha innovation cusub weeyaan inaan kaana maalgelin buu naga sugayaa annagoo la kaashanayna wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo hay'adahan xiriirka la leenahay waxaan damacsannahay insha allahu tacaala start your own business wax la yiraahdo qofka innovation hal abuur inuu la yimaado hal abuurkaasna anu soo bandhigno way su'aashaydii ahayd
shirkadda ma idin weydiiyaan shirkadda dhex u noqotaan oo idinku halka ay damiinada ka doonayaan ka wasaarad ahaan qofkan ma damiinan kartaan ama oran kartaan anagoo shaqo doonaba ka damiinaheen way jirtaa inay inoo yimaadeen cabdi cabdullaahi wuxuu ka mid ahaa mas-uuliyiintii soo maray wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada agaasimo waaxidkii waaxda arrimaha bulshada ayuu ahaa dhowr jeer baan arrimaha kala hadlay sida ugu sahlan shirkadaha insha allah negotiation baa noo socda sidaan anagu aan damiirad buuxdaan u siin karno halabuurada insha allahu tacaala waaya khalil maalgelintaad bixisaan ma dadkan caasimadda adigu horta waxaa tahay madaxii microfinance ka Hargeysa marka ma dadkan caasimadda unbaad maalgelineysaan haddaad dahabshiil microfinance tihiin mise gobollada iyo degmooyinkana wad gaadhaan wallahi gobollada dhammaantood waxaan ku wada leenahay xafiisyaan ku wada leenahay waata min Boorama ilaa iyo Laascaano barnaamijku waxa weeye san ku sheegay dadka faqorka badanaa lagama helo magaalooyinka waxa laga helaa meelaha magaalooyinka nawaaxigeeda ama rural areas ayaa laga helaa inkastoo dhibaatooyin badan kala kulano waxaanu dhammaan ku baahsanahay wadanka min mi ilaa magaalo macaamiisheedu waa joogan cabdilaahi walaal shirkadda Kimis waa shirkaddii ugu horeysay arrimahan microfinance ama baritaarka ganacsiga bilowday meelo badan bay ka shaqeysaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland intooda badan marka anagu waa ganacsigaasna waxa weeyaan cid u baahan ayaan soo dhaweynaa ujeedadoodu waxa weeye dadku inay helaan baac mushtarka yaryar inay helaan dhaqaalihii ay ku horumarin lahaayeen ama ay ku bilaabi lahaayeen ganacsigooda kuwaasoo markii hore ay adkaan jirtay in la helo qofku ama familigiisa ama uu ka heli jiray laakiin aanay jirin institution sidan oo kale ah oo arrimahan ka shaqeeya dadkan u baahan baanu maalgelinaa baa tiri dee dad u baahan baa miyiga oo kale jooga tuuladii jooga dadka mid gaadhsiisa marka eriyooyinka iminka aanu ka shaqeyno hadda 3 magaalo ayuu si wacan uga hirqaaday iyo deegaanadoodaba waa Hargeysa Boorame iyo Burco mustaqbalka waxaanu markaa filaynaa iyadana inaanu magaalooyinka berbera ka mid tahay maxay ahayd ayargaabo ka mid tahay laascaanood ka mid tahay aad gaadhaan iyagana inaanu gaadhno kuwaas markaa dhulka miyiga ee ku sii dhow eriyada baa iyagu ay sii gaadhsiinayaan haddii ilaahay ka dhigo laakiin way jiraan dad badan oo xagga miyiga waa tahay Cumar inagoo gabagabadii barnaamijkan kusii jirna dadkan innovationka sameeyey ama hal abuurka sameeyey ma jiraan dad tusaale imika waxaad ii sheegaysay shandadihii dad sameeyey dadkaasi innovationka ay sameeyey mid la isku halayn karo ma yihiin oo dhaqaale ka soo baxayo oo sii soconaya mise waa wax yaroo mar uu qof intuu hal tolay shandad tolay halkaa ku ekaata may ma filayo waxaan aaminsanahay Roma was not built one day Roma lama dhisin maalin keliya nimanka hal abuurka ay sameeyeen sanad dugsiyeedkii ayaa wax laga qaatay in ka badan 600 oo shandadood oo dugsiyada hoose ay ka qaateen haddii waxay noo sheegeen barday inay soo saari karaan haddii ay helaan mashiino culus ee shandadaha inay soo saari karaan in ka badan 220 iminka ay soo saaraan 3 waa tahay Khalil maalgelinta dadka gelisaan iyo dadka aad maalgelisaan iyo waxa markaad isku dartid nolosha dhaqan dhaqaale ee maxaad istir bulshadu way ka bedeshay haddaad qiyaas ku sameysay wallahi waxyaabaha qaarna waan oran karnaa way ka bedeshay waxyaabaha qaarna wali processkii waan ku jirnaayo kama bedelin waxaad moodaa barnaamijku xagga dhalinyarada iyo dumarka in uu xoogaa kusoo kordhiyey dumarka oo kale awood dhaqaale siiyey oo ay ka baxeen yani markii hore xaaladii hore ku jireen kaasoo kordhiyey yani doorkii ay ka ciyaari jireen markii hore familiga ama guriga waayo dhaqaaluhu waa muhiim markii hore ninkunba u hayay dhaqaalaha markaa haddii dayac yimaado inay gabadhi markaa meeshii gasho runtii waxaad moodaa dumarkii in ay awood yar waxaad moodaa dhalinyaradii kale dee fikradaha noola timid ee la maalgeliyey iyagina shaqaynayaan sidoo kale dhalinyaro kalena ay sii shaqaalaysiinayaan shirkadaha ay samaysteen ma jiraan qaar ku khasaaro oo idinku soo noqda way jiraan laakiin ma badna waa aad iyo aad bay u yar yihiin
less than a percent maxaad samaysaan marka kaa khasaare oo kale waxaa de qofku haddii u khasaaro maalan dadka dhalinyarada ah waxa weeye waxaan waanu dabagalaayo de wixii keenay waxaasoo dhan baa la baadha aduu dhowr case xal waa la gaadhaa qaar xal la gaari waayana waa way jiraan waa tahay cabdilaahi maxay maalgelintu ka bedeshay ka microfinance ay bixiso noloshii bulshada iyo dhaqaalihii runtii wax weyn bay ka bedeshay waaya waxaynu odhan karnaa marka ugu horeysa kimis oo hadda muddo 2 sano ah hawshan ku jirtay kumanaan kun oo lacaga ay maalgelinay dadka siisay malaayiina lacagta malaayiintii suuqay gashay habkii wax circle-kii wax iibsiga wax weyn bay ka tartay awal markii hore wax dibad laga soo diray xoolo un bay ku xidhnaa laakiin imika markaad aragto mawaaridlayaashii oo kale dadkii wholesalerskii dee lacag badan oo kaasho laga yaabo 200,000 inaan ku sii daynaa oo aan wax kaga soo iibiyeen markaasi haddana wax soo iibiyaan dukaanadii saasay ku dhaqaaqeen horta taas iyada lacagta malaayinka ee maalgelinta waa sameyn lacagtaas waxay markaa keentay in dadkii aanu amaahinay ama lacagta maalgelinay inay marka hore iyagu dakhli helaan ay ku shaqaystaan dadna shaqaaleeya waxaanu ku talagalnaa inta badan in kumanaan kun oo shaqo ah kimisoo keliya ay abuurtay markaa intaa waxaa sii dheer dadka ka sii faa'iida aanu siinay maalgelinta siinay waanu nahno ilaa 12,000 oo qoys baa ka sii faa'iiday oo familiyadooda livelihoodkooda ay intii dhaantay life standardkooda intii ka wargeysiyo boram iyo brakunool iyo meelaha kale lafteeda berbero kale inkastoo aanay xafiiska waxaan nooga wakiila meelaha aanay kimis ka furayn meelaha aan kuu sheego meelaha kimis xafiiskooda ka furan yahay meelaha kale ka hagasbaris xafiisyadeedii iyo facilitadeedaba nooga jira berbere ka jira ceergaabe ka jira marka berbero oo kale xaggan maxay ahayd kalluumaysiga ayaanu dad badan iyagana wax ka siinay maxaa la yiraahdaa sidaas aawadeed waxaanu qayb weyn ka lahay waliba nahay lafdhabarta shaqaaleynta iyo wax soo saarka iyo horumarka bulsho iyo ta dhaqaale intaba waxaanu markaa jecel lahay inuu inta insha Allah ta'ala mustaqbalkana aanu ka sii badino waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaynu ku sii saqaynaa waxaan u dhiibay kelmadda gabagabada Cumar aad baad u mahadsantihiin TV-ga qaranka aad baan ugu mahadcelinayaa iyo madaxda ka kala socda dahabshiil microfinance-ga ka iyo adigoo celjooga waxaan ku dhiirigelinayaa anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan in waddanka fursadaha shaqada aad u badan yihiin laakiin camalku uu yaryahay it means waxaan ka wadaa shaqo la-aani way jirtaa lama shaqeeyo laakiin fursadihii shaqo way dahsoon yihiin hala soo discover gareeyo research la sameeyey waxay sheegeen 80% shaqadu inay dahsoon tahay halka daraasad la sameeyey laakiin 20%na ay visible tahay waxaan ku dhiirigelinayaa shirkadaha inay sii laabaan hawsha ay qaranka u hayaan bulshada u hayaan annaguna waan garab taagannahay insha Allahu ta'ala waxaanuna insha Allah aaminsannahay gacmooda jir bay wax ku gooyaan qarankuna de xukuumadda kaliya ma aha bulshada iyo ganacsatada iyo dadka wada ilaa qarana aad baan u mahadsantahay khaliil aan kelmadiisa ugu dambeeyay ee daaranka ama fariinta uu gudbinayo macaamiisha iyo bulshada kaleba waxaan u sheegayaa bulshada ballaaran in yani barnaamijyadan ay ku cusub yihiin waddankeena ay ka faa'iidaystaan oo ay iyagu la yimaadaan fikradaha maalgelintii diyaar baa loo leeyahay inay iyagu inta fikradaha la yimaadaan aanay baqan ee ay abuuraan ganacsiyo kuwaasoo yani bulshada inteedii kalena tusaale fiican u noqdo oo ay bulshadu shaqo ka hesho sida kuwan maalgelineed ee kumanaanka qof dee sii shaqaalaysiinayaba ay yani ay kusoo dhiiradaan ayaan bulshada u sheegay waa tahay cabdilaahi bulshada waxaan u sheegayaa in ay jirto hadda fursad maalgelineed qofku hadduu fakar hayo halkii aad shaqo ka raadsan lahayd inaad adigu shaqo abuuran kartid oo weliba hadhowtana sida aanu macaamiisheedu u badan yihiinba aad dad sii shaqaalayn kartid adiguna marka inaad eeginuun inaad xafiis u shaqo tagtid ama inaad meelo gaara ama dawladda meelo gaara wax ka daydaydid
laakiin inaad adigu isku daydid inaad shaqaba abuuri kartid oo adigu iskaa u shaqaysan kartid taasoo haddaad fikir fiican haysid shirkadda Kimis iyo shirkadaha kaleba ay kula eegi karaan markaasoo fursadaas ay jirto maalgelineed markaa waa tahay daawadayaal barnaamijkii arrimaha bulshada ee toddobaadka intaa ayaynu ku soo afmeeraynaa waxaanaynu kaga hadlaynay sidaad arkayseen baa shaqada iyo shaqo abuurka tan iyo barnaamijkan oo kale ah intaynu ku kulmi doono waxaan u sii mahad celinayaa martida sharafta leh ee barnaamijka nagala qayb qaadanayay cabdilaahi xasan oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Kah Microfinance iyo Cumar Saciid Jaamac oo ah madaxa xarunta shaqadoon ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland waxaan kaloo mahad celinayaa Khaliil Maxamed Sheekh Cali oo isna ah madaxa Micro Dahab ama Microfinance ee shirkadda Dahabshiil ee magaalada Hargeysa si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa farsamayaqaanada barnaamijka Xasan Baanan Roma iyo Cabdi Cumar Jibriil aniga waliba si gaar ah ugu mahad celinayaa madaxa barnaamijyada ee telefishinka qaranka Soomaaliland Xuseen Cabdilaahi Deeqsi iyo tafatiraha guud ee telefishinka Xuseen Jaamac Jibriil oo markasta barnaamijkan qayb ka qaata weyn barnaamijka aalaba waxa soo saaro halkan idin kala socodsiiyo anigu Nuruddin Cabdullaahi Culujoog kan mid lamid ah intaan isugu iman doono toddobaadka soo aadan waxaan dhamaanteed kaga sii tageynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.